xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba uu heliyo Iidaroor Cali xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa Maxamed Haybe Maxamuud Cabdilaahi Yuusuf Colaad iyo Aadan Dubad xildhibaanadani ayaa maanta u kala diray booyada biyaha deegaano hoos yimaada gobolka Saraar mas'uuliyiintani ayaa waxaa biyahaasi u soo wakiishay dad muxsiniin oo degan Suudaan gaar ahaan magaalada Maalmo isla markaasina ku midoobay dalada duriyada Sheekha iyagoona ugu talagalay muxsiniintani dadka ay abaaruhu saameeyeen biyahani ee ku dhaqan gobolka Saraar maanta ayay si rasmi ah u gaarsiiyeen mas'uuliyiintani dadkii loogu talagalay biyahani oo ka koobnaa 6 booyadood ayay maanta si rasmi ah ugu qaybiyeen xildhibaanadani iyo mas'uuliyiintani deegaano hoos yimaada gobolka Saraar runtii aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa oo aan u bogaadinaynaa oo aan u ducaynaynaa dadka muxsiniinta ee mar walba hiil iyo hoogaba la garab taagan bulshadan aadka u jilicsan ee gobolka Saraar ee runtii abaaraha baan iyo biyadaamiska badan runtii uu ka jiro waxaanu saaka halkan oo ay salaad hore tahay aan ku taaganahay 3 xildhibaan iyo mudane Iid waxaanu halkan ku gudoomaynaa oo aan ku gudoonay 6 booyadood oo runtii naga soo gaadhay hablo muxsiniin ah oo duriyada reer Sheekh Isxaaq runtii ku midaysan hablahaasi waxay aad iyo aad runtii uga xumaadeen oo runtii ay taakulada iyo maxaa la yiraahdaa iyo sadaqadaba ay la soo gaadheen wixii awoodooda ah 6 booyadood insha Allah xildhibaanada sharafta leh halkan taagan waxay u qoondeeyeen oo ay u qorsheeyeen tulooyinka ama goobaha ay ka mid yihiin magaalada la yiraahdo Badweyn Jiiqada Baadidaye Ceeldaab Doobaweyne iyo meesha la yiraahdo Tugwaalka waxaanu Ilaahay subhanahu wa ta'ala hablaha uga baryeynaa inuu meeshii ay ka soo saareen wax san Ilaahay uu ugu bedelo bulshadana runtii ama goobaha aan ku shubayno iyagana waxaanu faraynaa in biyaha si siman oo cadaalad ku jirto oo wanaagsan oo aan la kala lahayn in loo cabbo waxaan halkan uga mahad celinaynaa anigoo Iidaroora iyo 3 xildhibaan ee mudan ee sharafta leh ila taagan ee la jooga ee biyahan ila qaban qaabinayay ilaa iyo dhowrkii cishaan hawshan wadayba waxaan halkan uga mahad celinaynaa hablaha reer Suudaan ee degan magaalada Maalmo ee ku midoobay golaha duriyada aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa Ilaahay meesha ka soo saarteen wax khayr qabahaydii ku bedelo waxaanu wadnaa hadeerto 6 booyadood oo lacagta noo soo dirteen ee $1,000 ahaan ka soo iibinay oo aanu doonaynay inaanu dadkii ugu talagasheen ee baahnaa ee haraadana aan ku gaarsiino hablihiinaasi aad baanu idinku ducaynaynaa aad baanu idinku mahad celinaynaa Allah idin sharfo dhamaantiin kan taaganahay waa Jiiqada oo hoos tagta degmada Wadaamago gaar ahaan gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba waxaan marka hore halkan uga mahad celinaynaa hablihii muxsiniinta ee biyaha soo bixiyay ee ku abtirsada duriyada Isxaaq ee ku sugan wadanka Suudaan waxaan leenahay walaalayaal waa ku mahadsantihiin sida dadkiina iyo shacabkiina abaaraysan ee abaartu saameysay hiilka iyo hoogaba loo dhagax taagantihiin dhanka kale iyaguna waxaa ka mahadnaqay biyahani maanta la soo gaarsiiyay bulshadii iyagu loogu shubay kaamamka iyo meelaha ay joogaan waxaanu mahad celinaynaa hablaha muxsiniinta ee soo gaarsiiyay biyaha ayaanu mahad celinaynaa iyo xildhibaanada la soo gaarsiiyay biyaha ayaanu mahad celinaynaa haddaanu nahay beesha degan Jiiqada waan idin mahad celinaynaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxaanu doonaynaa inaad noo soo kordhisaan waxa la wixii ay heshaan